kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta telefishinka SBT qodobada wararka maanta ugu doorkroon ayaa waxaa ka mid ah kulankii ay isku hayeen dowladda federaalka ee dowlad goboleedyada oo u dhacaya hab cusub jawaari oo sheegay waxa ay tahay in hadda kadib looga yeero madaxweyne farmaajo Jubbaland oo si adkaysay shuruudii ay ku xirtay heshiis laga gaaro doorashooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo war ka soo saaray geerida Suldaan Maxamed Ilhaan Cumar oo loo magacaabay xil muhiim ah dowladda federaalka oo daahfurtay diiwaangelinta diyaaradaha iyo Hala Airlines oo noqotay diyaaradii ugu horeysay qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran u diyaar garoowa waa maalinimo Sabtida taariikhdu ay ku beegan tahay 13 February 2021 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran xog lagu kalsoon yahay oo aan helnay ayaa sheegaysa in shir u dhaxeeya dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir uu ka furmi doono magaalada Baydhabo si xal looga gaaro ismarinwaaga ka taagan doorashada xogtan aan helnay ayaa sheegaysa in wakiil ka socda dhinacyadan oo ka kooban min 2 xubnood ay maanta tagi doonaan magaalada Baydhabo si ay ugu wada hadlaan qodobada la isku hayo ee saldhigga u ah heshiiska doorashada ee 17 Sebtembar ilwareedo la helay ayaa sheegaya in shirkan ay soo qaban qaabisay beesha caalamka oo doonaysa in dhammaan qodobada la isku hayo ay heshiis ka gaaraan guddiyadan ka hor inta aysan kulmin madaxda dowladda federaalka ee dowlad goboleedyada dalka beesha caalamka ayaa lagu waramayaa inay arrintan soo jeedisay si meesha looga saaro fashilka joogtada ah ee ku yimaada shirarka madaxda kuwaasi oo ay u aragto kuwa badan abuura hadalhayn badan cadaadis iyo niyajab warka ayaa sheegaya in marka guddiyada ku shiraya Baydhabo ay ku heshiiyaan qodobada la isku hayo hor keeni doonaan madaxda dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir si kama dambaysta u saxiixaan iyada oo la qabanayo munaasabad saxiix ah wali go'aan lagama gaarin halka ay ka dhici doonto munaasabadaas waxaase u badan tahay Muqdisho arrintan ayaa imaanaysa kadib markii Puntland iyo Jubbaland ay dhawaan diideen in shir uu soo jeediyay farmaajo lagu qabto Garowe iyagoo ku baaqay in shirkaas uu ka dhaco magaalada Muqdisho waxay sidoo kale meesha ka saaraysaa baaqi ay Puntland iyo Jubbaland ee ahaa in saamileyda kale ee siyaasadda dalka laga qaybgeliyo wadahadallada waxaana muuqata in beesha caalamka ay diidan tahay in wadahadallada la balaariyo macadda haddii guddiyadan ay awood u yeelan doonaan inay heshiis ka gaaraan qodobo ay isku mari waayaan madaxdii ka sareysay dhanka kale gudoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa sheegay in madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday loogu yeero kusime ama sihaye Jawaari oo ka qayb galay barnaamij dadwadaag ah oo ka baxayay warbaahinta maxalliga ayaa la weydiiyay madaxweynaha muddo-xileedkiisa dhamaaday waxa looga yeeri karo wuxuuna sheegay inuu yahay kusime sidoo kalena awoodaha uu leeyahay ay noqonayaan kuwa aan sidii hore u awoodbarneen madaxweyne waqtigiisa 4 sano wuxuu ahaa madaxweyne balse hadda wuxuu noqonayaa sihaye laakiin lama sheego waxa xadidmaya howlaha uu qaban karo tusaale heshiisyo caalamiya ma geli karo waxyeelo waaweyn ma samayn karo laakiin madaxweyne waa madaxweyne ayuu yiri Professor Jawaari mar kale ayaa su'aal lagu celiyay oo ahayd ereyga qaanuuniga ah ee looga yeeri karo maxay tahay wuxuuna wariyaha uga jawaabay jawaab ah hadda waa kusime waana sihaye labadaba waad dhihi kartaa laakiin madaxweyne inaad tiraahdo ayaa la qaatay isagana ha fahmo adna faham inuu xadidan yahay warbaahinta ayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu yeerta madaxweynaha muddada xileedkiisa dhamaaday markii la gaaray 8 Febraayo iyadoo musharaxiinta mucaaradka ay diideen inay madaxweyne u aqoonsadaan sidoo kale maamul goboleedka Puntland ayaa diiday madal u dhigay Garowe iyagoo ku safaynaya inuu muddo-xileedkiisa dhamaaday waxayna ku baaqeen in shirka laga dhigo Muqdisho waxaana ku taageeray Jubbaland iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaanshe Cabdullaahi si kastaba ahaatee Professor Jawaari wuxuu sheegay in farmaajo looga yeeri karo sihayaha xilka madaxweynaha Soomaaliya tan iyo inta laga helayo madaxweyne bedela dhanka kale maamulka Jubbaland ayaa si adkeeyay shuruudaha ay ku xireen doorashada Soomaaliya ee la xiriirta gobolka Gedo oo ay isku hayaan madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiirka warfaafinta ee Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed oo shalay ka qayb galay barnaamijka dooda Jimcaha ee laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa hoosta ka xariiqay in dhankooda aysan doorasho ka qayb gali doonin haddii lagu wareejin waayo dhammaan
deegaanada gobolka Gedo. Xaq waxaan u leenahay oo September 17keeda lagu gooyay in aan anagu mas'uul ka nahay doorashada qaybta ka dhacaysa Jubbaland. Madaxweynaheenu mas'uul kama noqon karo meel uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qabsaday oo xitaa intaan u tanaasulnay aan dhahnay Gedo inteeda kale dib u heshiisiin dambe gasho ee Gaarbahari aan gudoomiyihii iyo 100 wiil oo booliis ah keenno oo u diiday oo ay dhaheen ka tanaasula oo uu subaxii dambena soo duulay. Markaasaad leedihiin dalkayaan caqabad la gelin, ayuu yiri wasiirka warfaafinta Jubbaland oo hadlayay si cara leh. Waxaan intaasi ku daray, anagu waxaan taaganahay haddana idin sheegayaa Gedo oo complete ah, dhammaystiran, oo aan la soo celinin wax doorasho ah oo ay Jubbaland galayso ma jirto. Haddaan idin sheegaya waa go'aanka aan leenahay 60 maalmood gudahood haddii aan lagaga qaadin ciidamada oo aanan maamulka Jubbaland gacantooda lagu soo celin wax doorasho ah oo aan galayno ma jirto. Laakiin xildhibaan Sikriye Xaaji Cabdi oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya oo isagana dooda qayb ka ahaa ayaa difaacayay eedeymaha loo jeedinayay dowladda federaalka, wuxuuna ka jawaabayay hadalka ka soo baxay wasiirka warfaafinta Jubbaland. Gobolka Gedo ayaa u muuqda inuu xudun u noqday khilaafka u dhaxeeya maamul goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Mas'uuliyiinta Jubbaland waxay ku candoonayaan in 5 degmo oo ka mid ah gobolkaas ay dowladda dhexe iyadu maamusho, ayna mas'uuliyadda ciidanka ka howlgala halkaas u dhiibtay taliyaal iyada ka marqaata. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa taasi tiraanyale u diray qoyska, qaraabada, dhaqanka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo ka baxay. Allah u naxariistay Suldaan Maxamed Suldaan Cabdulqaadir Suldaan Cabdullaahi oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Madaxweynaha oo tilmaamay in marxuumku uu door muuqda ka soo qaatay dib u heshiisiinta dalka, adkeynta wadajirka iyo dabaalidda dib u dhiska dowladnimada Soomaaliyeed, ayaa si gaar ah ugu tacsiiyey ismada iyo guud ahaan hoggaanka dhaqanka Somaliland geerida ku timid marxuumka oo ah suldaankii guud ee Somaliland. Allah u naxariistay marxuum Suldaan Maxamed Suldaan Cabdulqaadir waxa uu ka soo qayb qaatay nabadeynta iyo dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed. Waxa uu ka mid ahaa hormuudka dhaqanka Soomaaliyeed ee dadaalka ku bixiya dib u yegleelidda qarannimada dalkeena iyo wadajirka shacabkeena, isagoo si gaar ah ugu qayb qaatay shirkii Carta 2000 kana mid noqday xildhibaanadii dowladdii ku meelgaarka ahayd. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa marxuumka alla u weydiiyey in uu hoygiisa ka yeelo Jannatul Firdaws, samir iimaan uu ka siiyo qoyskiisa iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo uu ku geeriyooday. Xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka Koongareeska ee dalka Mareykanka ayaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka guddiga hoosaadka awoodda u leh arrimaha Afrika iyo arrimaha xuquuqul insaanka caalamka. War ka soo baxay xafiiska xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa lagu sheegay in xilkan cusub maalintii Khamiista ahayd loogu dhawaaqay Washington. Magaca guddigan ayaa ah Guddi Hoosaadka Afrika, Caafimaadka Adduunka, Xuquuqda Aadanaha iyo Ururada Caalamiga ah. Doorkeeda cusub, Ilhaan waxay sheegtay in ay si gaar ah u danaynayso inay kormeerto arrimaha gargaarka caalamiga ah iyo siyaasadda dibadda ee Afrika. Ilhaan ayaa horey ugu mid ahayd guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Koongareeska, inkastoo oo dadka dhaleeceeya ay horey ugu baaqeen in laga saarayo kadib hadallo ay si weyn loo dhaliilayo oo ay jeedisay sanadkii 2019 oo ku saabsanaa saameynta siyaasadeed ee Israa'iil ku leedahay Mareykanka. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shalay furtay diiwaangelinta diyaaradaha iyo rukhsasiinta xirfadlayaasha, taasi oo muddooyinkii dambe ay wadeen wasaaradda duulista iyo hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed. Shirkadda diyaaradaha ee Hala Airline ayaa noqotay diyaaraddii ugu horeysay ee hesha shatiga diyaaradaha Soomaaliya, taas oo dadka raaca siinaysa kalsooni ah inay raacayaan diyaarad sharciyeysan. Milkiilaha shirkadda Hala Airline Xaaji Ibraahim oo ka hadlayay munaasabadda ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in diyaaradooda ay noqotay midii ugu horeysay ee Soomaaliya ee hesha. Shirkadda Hala Airline ayaa leh dhowr diyaaradood oo ka howlgala magaalada Muqdisho iyo diyaarado tegaya dalalka Imaaraadka Carabta iyo Kenya. Munaasabadan oo uu daahfuray wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad
isagoona ku bogaadiyey dadaalka hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed iyo howlwadeennada wasaaradda. Wasiir Omar ayaa waxa uu ku ammaanay shaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada shaqada adag ee ay ka qabteen nidaamka duulimaadka dalka iyo hirgelinta nidaamka cusub. Ugu dambeyntii waxa wasiirka u guddoonsiiyey ogolaansho shaqo iyo rukhsado ka marakacaya aqoontooda shirkadaha duulimaadada iyo duuliyaal Soomaaliyeed. Ciidamada Commandos-ka Danab oo howlgalo ka sameeyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay inay nolol ku qabteen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in howlgalkan lagu sameeyay tuulooyinka Waraciise, Majabadan, Qoordheere, Buulaganey. Intii uu socday howlgalkan waxaa meelaha qaar ku dagaalamay ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab iyadoo khasaaro uu soo kala gaaray labada dhinac. Saraakiisha ciidamada dowladda ayaa sheegay in dagaaladan ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab halka ay nolol ku qabteen kuwa kale oo hubeysan. 15 qof oo ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa lagu soo oogay dacwad la xiriirta isdabamarinta lacageed xilligii la aasay madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Nelson Mandela. Xubnahaasi waxaa ka mid ah siyaasiyiin caan ah oo ka tirsan xisbiga haya talada dalka Koonfur Afrika ee ANC oo ka soo jeeda gobolka Eastern Cape, balse shakhsiyaadkan xabsiga la dhigay kiiska loo haysto kama aysan hadin. Dacwad oogayaasha waxay xubnahaasi ku soo eedeeyeen inay isdabamariyeen ku dhawaad $700,000. Mandela ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyay oo madow ah kadib markii uu dhammaaday midabta koorkii ka jiray dalkaas sanadkii 1994. Hadalhaynta eedda raggan loo haysto ayaa soo bilaabatay 2014 xilli ay bilooyin ka soo wareegatay aaskii madaxweyne Mandela ee ka dhacay magaalada Qunu ee Eastern Cape 13 December 2013. Xubnaha dacwadda musuqa wajahaya waxaa ka mid ah madaxa wasaaradda caafimaadka gobolka Eastern Cape Sindiswa iyo dad kale oo isugu jira xildhibaano iyo ganacsato caan ah. Dacwad oogayaasha kiiskan gacanta ku haya waxay ku doodayaan inay shakhsiyaadkan sameeyeen shaqooyin been abuur ah oo ay ku sheegeen lacagahaasi in loo isticmaalay gaadiidka baroordiiqa loo adeegsaday iyo goobihii baroordiiqa ay ka dhacayeen ee ku tiilay bariga London. Xubnahan oo xabsiga damaanad loogu sii daayay waxay maxkamado ka soo hormuuqan doonaan 5 bisha Maarso. Intaas ayaan ku soo afbeerina wararka maanta ee telefishinka SB TV. Intaan warkan kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.